su-aasha aan idin weydiinaya waxa weeye sidee u aragtaan Etoobiyaanka oo soo galayo in Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ma aqrin yani meesha ay leeyihiin Ethiopia oo Soomaaliya soo galay laakiin haddii ay dhacdo waxaan u sheegaynaa min sanaawi horaad u khaldantay 2006 haddaad khaldanto mar kale waa meesha kugu dhammaan lahayd ogow min sanaawi boqolkiiba 75 dadka Ethiopia degan dad muslimiin yihiin dadku waa sabar badan yihiin waa dul qaadanayaan laakiin marka dambe dulqaadku waa ka dhamaanaya waxayna noqonaysaa xaalku inuu iska bedelo nimanka aqalada kirishtaanka boqolkiiba 25 ee xukuumadda Ethiopia waqtiga dheer yani sheekadooda way soo dhamaanaysaa saas aan u sheegay waxaan oran lahaa ka noqo haddaad ka noqon weydo waxaad ogaataa Soomaaliya inay carab badan inay hayso inay ka xanaaqsan yihiin qaska aad ku wadid Soomaaliya ka waantoba ka oran هاي هذه معك كل سنة سنة. هذا سنة وفرح سنة عبد الله وصح كل سنة وعدو الصومالية. هذا مرلبات صوق لنا 10 هرول لو بدي قال لو بدي دورة وشوف وخلق الماء. ليش عن معها بلها واستمع من الصيدا الجنسي وبتولان ما كتكن وهذا التنبيه وجعل فقالوا عم بدور لها نكش شريف بين هذا قروا قالوا يمكن الصومالية كبضن وقفي عم بجرا وفوق الضغط سياسة حمر Soomaaliya waa Muqdisho ninka barnaamij ministarka iyo farolana maaha Soomaaliya siyaasadda inay ka hadlaan waa inay dadka la mid noqdaan Soomaaliya waa qabiilo badan tahay waa dhul badan tahay maaha garaw in anaga noo buunbuuniyo Muqdisho waa inuu shir ka dhaca meel kale oo ka dhicin saas ku guuleysan kara Shariif hadii kale halka sano oo haro ayuu ku dhamaysan doonaa meesha adii soo aragtaa tagista oo tagay garaw wallahi walaalkay Cabdi aniga wasbis horjeedna arintaas aniga waxaan leeyahay Puntland waa subject host maada dowladda federaalka sidii sax ah hadda ay sameeyeen waa soo dhaweeyeen madaxweynaha waxaan rajaynaynaa cashuurta inay soo aruurshaan waxaan rajaynaynaa inay ciidan ay ku soo biiriyaan dowladda federaalka Soomaaliya hadda waxa u baahan tahay in magaca Soomaalida la raadsho in laga baxo qabiilka in cadawgaas Etoobiyaanka ay wax la mid ah in la iska kaashado la isku yimaado assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh